السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo qaadan doonaa shirka jaraa'id oo macalin Arsenal oo qabtay ka hor kulanka Axadaan ciyaari doona kuna ciyaari doona geegada King Power Stadium waxaana u bixi doonaa naadiga Leicester. Haddaba intaan shirka jaraa'id u gelin fadlan muuqaalada shirka jaraa'id hanuugu duunada muuqaalada kale noo sheegay taasna waxay nagu dhigan tahay dhiirigelin oo inoo ah inaan hore u sii dhaqaaqno waliba aan soo sameeyno muuqaalo ka qurux badanba. haddaba aan kow ka bilaawno shirka jaraa'id macalin Arsenal oo qabtay ciyaartooyda kuwa heli kareeto iyo sidoo kale wuxuu ka hadlay Virgil van Dijk. Ugarintan aan eegno Alexander Arnold waxa suurtagal ah oo sheegay in uu keedka soo fadhiisan doono kaas inuu boos ka helo oo ah kursiga keedka in lagu soo fadhiisiyo maalinta Axad aan la ciyaari doono naadiga Leicester. Alexander Arnold sida ognahay 11 bishii horeeto ayuu ku dhaawacmay ciyaartii lugti koowaad ee Paris Saint-Germain aan u bixinay laakiin intaas in ka dambeeyay garoonka muusan cagta soo dhigin maadaama uu dhaawac u ahaa. hore waxaa idinku sheegay wareysigii hore Alexander Arnold waxaa suurtagal ah kulanka Leicester ah inuu benjiga soo fadhiisto tiin ayaa dhici doonto. haddaba Alexander Arnold hadda tamaam ahaan ayuu dareemayaa sidoo macalinka sheegay xaaladiisa haddana waxaa suurtagal ah in aan daqiiqada kooban ciyaarsiino kursiga keedka uu boos ka helo taasi way dhici kartaa ayuu sheegay macalinka. sidoo kale wuxuu ka hadlay Virgil van Dijk waa player oo dhahay xiliyaareedkan ciyaaryahan ugu fiican waxaan u sheegay oo dhahay in ciyaartooyda ugu fiican aan haysano si aan ciyaartooyda tayadooda aan ugu faa'iideysano. wuxuu dhahay tayadooda mid la inkiri kara maahan tayadooda mid aad u sareysa Virgil van Dijk oo kaleeto ciyaartooydaas oo kaleeto muddo dheer naadiga inay caawiyaan ay sii joogaan ayaan noo qurux badan ayuu dhahay. teeda kale wuxuu ka hadlay suuqa kala iibsiga wuxuu dhahay suuqa soo socdo wuxuu inoo noqon doonaa xagaa aad iyo aad u weyn. kaftan waa uu sii raacay wuxuu dhahay haddii aan ku dhaho kuwa maxaa lahaay ciyaartooyda aan haysto kuma faraxsan haddii aan ku dhahana taasna way dhici kartaa. haddaba Arsenal oo uu iska baashaalayay sababtoo wax ka qasan ma lahan wuxuu dhahay teeda kaleeto macalin ku cusub Premier League oo Premier League horyaalka aad u wanaagsan dhahay horyaal aad u adagna waaye suurtagal macalin cusub inuu horyaal ka qaado aad u adag tahay laakiin tani waxay inoo tahay dhahay dhiirigelin iyo fifaalo anagu hadda halkaan imaanay in hore Premier League aan kaga guuleysano. haddaba intaasi iyo wax ka qurux badan ayuu macalinka sheegay laakiin muhiimad ayaan soo qaato ah in la soo qaado karo. haddii inta aan la joogto waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka gaarsiiso asxaabtaada haddii si ay nagu soo biiraan asxaab kaleeto cusub. نسرت